gabadhan halkan ayay shaqo kasoo doonanaysaa. waardiyahan ayaa lacag gadaasheeda ku tuuriyo wuxuuna ku leeyahay marwo lacagta maaday kaa dhacday. ayadana inay soo jeesatay leedaha aniga ayaa iga dhaca lacagta ayay qaadanaysaa. kadibna waxay galaysaa wishka waxay leedahay runtii waa maalintii igu horeysay aan soo doonto shaqo waxaana helay lacag aad ayaan u faraxsanay. waardiyaha isla marka marwada xaggeeda ay u jeesanayaan marwada ayaa soo jeesanaysa waxay ku leedahay baal iga sii. isagana wuxuu ku leeyahay maya lacagta way qaadatay ayuu ku leeyahay. lacag kale ayay u dhiibaysaa. haddana waxaa imaanaya midkan kale oo shaqo raadis ah. kadibna ninkii waardiyaha ayaa ku dhahay mudan lacagta maaday kaa dhacday. ninka wuxuu ku leeyahay lacagtan aniga ayaa iga dhacday. waardiyaha isla sidoo kale islaanta wuxuu u sheegayaa in lacagta ay qaateen. haddana lacag kale ayay usoo saaraysaa. gabadh kale ayaa imaanaysa wuxuu ku leeyahay marwo maaday kaa dhacday lacagtan. ayadana sidoo kale waxay leedahay aniga ayaa iga dhacday qaadaysaa. midan afraad ayaa imaanayso wuxuu ku leeyahay marwo lacag ayaa kaa dhacday. lacagta ayay soo qaadaysaa. waxay ku leedahay maya lacagtan aniga male ee qof kale ayaa iskale. waardiyaha ayaa ku dhahay haddii aadan adiga lahayn waayaha iska qaado. ayadu waxay ku leedahay maya ma qaadanayo waa lacag islaameed. waxaa laga yaabaa qofka iskale inuu imaado waa inaad gacanta aad ka saartaa. waardiyaha islaantii ayuu u sheegayaa gabadhan inay lacagta ay ka tagtay ay tahay qof daacad ah. islaantii meesha ayay ka tegaysaa. waa kuwan afartooda meesha taagan. marwadu waxay ku leedahay runtii interviewga waxaan inaga qaaday xafiiskeyga meel ka baxsan. waxayna u sheegaysaa shirkadooda inuu baahneed qof aamin ah. waxayna ku leedahay qofkaas waan helnay. waxay u sheegaysaa saddexdan kale in ay shaqo ahaynan ay ka tagaan meesha. waxayna qaadanaysaa gabadha waxayna ku leedahay shirkadiina adiga ayaa la shaqaynaysa maanta ka bilaabato waxaana ku siina shaqa.